mahad iska leh maanta noo soo tageliyay kulankan aan iskugu nimi xildhibaanada iyo senatarada iyo gudoomiyaha guddiga xuduudaha iyo dhaqaatiirta maanta oo taariikhdu tahay 13 bishii 9aad 2020 waxaan ku wareejinaynaa dadkan garbahayga taagan anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka alaab gurmad ah oo ka kooban teendooyin ururka kalkaal aan ku wareejinaynaa maanta waxaana ururkaas ka socda Dr. Sahra baa lagu wareejin doonaa hadii Ilaahay yar insha Allah waxaana loogu talagalay isbitaalada laga dhisay Orboges iyo Widwid gurmka loogu talagalay maadaama ururkaas Ilaahay khayr ha siiye uu hirgeliyay in uu dhiso isbitaalkaas dadka deegaanada ku nool inuu u dhiso wasaaradda baahidii markaa meesha ka soo gaadhay oo markaa ay nagu yimaadeen aad bay baahidooda u farabadnaa isbitaalku farabadnaa laakiin annaga wasaarad ahaan waxaan markaa haynay annagoo kaashanayna hay'adda UNHCR ayaa waxaan u helnay teendooyinkaas oo ka kooban ilaa 12 boqos baan ku wareejinay maanta waxaan ku wareejin doonaa guddiga iyo xildhibaanada iyo gudoomiyaha